waxaan filayaa warka murtidiisa waxaa lagu sheegay war murtiyeedkii saaxiibkay madaxweyne Siciidna faahfaahin dheeraad uu ka bixiyey in yar waxaan rabaa inaan ku daro xaaladda maanta waddanka Soomaaliya uu ku jira waqti kala guura ma aha inay hadda waqtigan oo keliya caqabadani timaado mar kasta ay doorashadu soo dhawaato waxaa yimaada isqabqabsi waayo damaca ayaa isdiida ninka kursiga ku fadhiyay wuxuu rabaa inuu sii joogo oo waqtigii hore uga sii fiicnaanaysaa ninka bannaanka ka joogana wuxuu doonayaa inuu kursiga tago wuxuuna qabaa tuhul ah ninka maanta fadhiyay inuu rabo inuuna ka tegin taasi markaa waad garan kartaan 2012 iyo 2016 labadaba xaaladda waqtiga ugu dambaysa meesha ay gaaraysay laakiin maxaa meesha taalla waxaa weeyaala in la helo shucuur almas-uuliya ama dareen mas-uuliyadda in la dareemo oo qof waliba maanta kursiga uu ka tegayaa laakiin uu garto waxa uu ka tegayaa waxa ay noqonayso waa mid faran markaa nin kastoo mas-uula maanta ama heer state ha noqoto ama heer federaal ha noqotee inuu garto maanta xaaladda waddanka uu ku jiraayay waxaa ka iman karay iyo meeshay istaagi karayso taasaa waxay ahayd waxa aada aan saaxiibkiis Siciid iyo madaxdii reer Puntland iyo akhyaartii iyo waxgaradkii aan ugu nimid aan kala hadlaynay danta dalku maxay tahay maxaase annaga nagala gudboon wax badanna waxaan istusayna waxay ahayd in qof waliba meesha uu taagan yahay tanaasul uu sameeyo dadkan sidii la isugu wadi lahaa waddankan meeshii la geyn lahaa sida si nabad ah doorasho uga dhici lahayd waqtigeeda ku dhici lahayd khalkhal siyaasadeedna uuna u yimaadeen waayo markaa taariikhda dib ugu noqoto isbeddelka siyaasadeed ee waqtigiisa ku dhacay Soomaaliya wuxuu u geystay tallaabooyin horey loo qaadayo wax kastoo markaa caqabad ku keenay iyadoo dhibaato ku yahay dadka Soomaalidana iyaga isku dan ah meel kale wax laga soo guuriyay cid kale wax lagaga dayay midkoodna wax dan ugu ma jirtay waxa iyaga ka dhaxeeya dano midaas waad garan karaysaan markaa inaan intii aan joognay xiriir badan uu jiray madaxda waddanka Soomaaliya ama heer federaal ama heer state inaan wada hadallo la yeelanaynay sidoo saaxiibka Siciid sheegayna ay tahay in la isugu tago magaalada Muqdisho oo aan halkaas tagno si aan uga sii ambaqaadno war maxaa dhiman ilaa wixii waa in la isqanciyo xagee wax inoo yaalaan aan aadna isugu boorinay cid walbana u sheegayna in wax badan loo talaasulo qadiyadda guud ee dalka iyo inta maanta danleyda ah ee dhiban ee shabaab iyo mushkilada oo dhan Soomaaliya ay ku haysato waxay soo fiirinayaan waa inta mas-uuliyiinta ah qof walibana berri waa lagala xisaabtami doonaa taasna waxaan rajaynayaa in ay si fiican kusoo dhammaan doonto wixii annagu aan isnidhi iyo wixii la falanqeeyey iyo kulligeedna ay ahayd dardaaran iyo Soomaali iyo xalkeeda iyo nabadeeda iyo isu keenisteeda iyo xilliga kala guurka in la ilaaliyo inuu ahaa shayga asalka aan ka wada hadlayna mar labaad waxaan rabaa madaxweyne Siciid iyo reer Puntland inaan uga mahadceliyo doorka shariifka ee mar walba ay ka ciyaaraan ilaalinta sistamka federaalka iyo dowladnimada Soomaaliya oo aan garanayna maanta dowladnimada xawar lagu degan yahay meesha ay ka soo dhaqaaqday iyo sida ay maanta tahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa inaanu annaguna gudi doono abaalka iyo soo dhoweynta iyo garab istaagga iyo siyaasadda had iyo jeer aad ka waxaynaysaano mar hadday Jubbalandna tahay tii labaad ee kusoo xigtay nidaamka federaalka annaguna aan si fiican usii jiidi doono aan noqon doono muriid fiican oo macallinkiisii wax baray wax kaga daya doono aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum.